wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afari nusafadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay kalamaanay waxaan idin idhi saldanada ragow neertaasidee ruux aan sugayn inay siin kartiyo inay waxba meel ku salaysan tahay ma ku seexataa warlan yaa arisku bayna saageen alaari irsaagada socda la kuweydiye meelale meelino galo kuweydiyaana nin yaw aryaadaha lamadi tilaababa talaa ka dhalataa la yiri xaa cusub haddii la soconayo ma meel kaloo la aadaa la waaye maxaa Nairobi laga doon war intiinaba waxaad sheegaysaan dastuurka ma ku qoran tahay war dalkeena inaan iibsan karin dastuurka ay ku taala war adinkoon daalin xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha ilaa suuq loo helo loo dhoofiyo miisaaniyad ku filan wadanka lama helayo war beeraan degalata beero la fala inta ka yaalan badi walaal ka dhoofiya inta ka taala niyow war wax kale iska daayay sagaaradii xitaa qadar baa loo dhoofiyay maxaan miisaaniyad nagu filan ugu heli weyn war ma dhaqaale la'aanta xitaa al-shabaab ay soo wajahday oo waxa la yiri xoolaha baadiyaha ka luma intay xareystaan bay muqdisho wiib keenaan aryaadaha shabaab ma dadkay baadiyeesteen ay xoolo baadiya ku masruufayaan war waxaad sheegaysaan dadadow baadiyeyso oo baadidadow ku bilmiya war hadda koona waxaan maqlay bal dadow deyn ku qaad lo dadow deyn ku sii aryaadaha xaad isugu daalihaysan hadda ka hor faratol igaar la yiraaho waxa uu yiri oo kalaamaan mugdi ruux ku foon karbuuna haysan waa uu ka kalaamaan mugdi ruux ku foon karbuuna haysan waa uu ka haye war nimayo mahmaayeen cusub baa soo baxay oo update 2019 ah waxayna kala yihiin maskaxdii ka maqan google ay ku jirtaa ninkii Facebook laga waayo WhatsApp ka laga helaa qofkii iga joog laga waayo mar uun buu blog la kulmaa waxa kale la yiri nimaad ku darsatay isaga kuguma darsan waaye like sar lama yiraahdee wuxuu ku saaraa la tusaa waxaana kale la yiri Soomaalidu been like way saartaa balse been ma sheer garayso aryaxaad sheegaysin dadkan waxaan been ahayn basharka kuma naqdaan war hore waxa loo yiri hadii aan blog jirin lama kala badbaadeen war bahalaasay heesa haytay ninku ku dheelayniyow hadii aan jaceyl jirin jawhar lama degeeno hadii aan jaceyl jirin balad idii ma joogtee war hadii aan jaceyl jirin jaarba maynaan ahaaneen war hadda qowdinow Soomaaliland iyo Soomaaliya ma jaceyl ka dhaxay wareedahay ana war idin hayay dhageysta ra'iisul wasaare Khayre wuxuu soo xiray shirkii culimada khudbad taariikhi oo caaqibadana waa ka jeediyay wuxuu yiri hadii dawladii hore ka baqi jireen mucaarad tani waxaas waa ka gudubtay war una maseen liyaabana wiligii ngalantin tiiska kan tamajilaaw ari jirtan lankimidoogna arabeeti ya ari jirtay sidii lay ureed aryaadaha madaxweyne farmaajo waa kii shirka qaahira ka qayb galayay waxauna la kulmaan la yiri madaxweynihii hore Cabdiqaasim Salaad Xasan nin do'ay aray war madaxweynahayagii Muuse Biixi ma ku jira shirka ka dhacay qaahira aryaadaha warka hayga dhabjinina madaxweynihii hore waxa uu yiri siyaasadnimadu ma aha kursi doon kaliya bari gashow inaad wax mucaaradana waa laga fiican yahay dawlad kasto dhalatana hadii aad mucaaradin wax idin hagaagaya male war talada madaxweynihii hore ku soo xasuustay nin odayiina dawladda wuxuu kula taliyay fulanimadu khayr ma leh geesinimo yeesha baqaylnimaduna hogaamin kuma fiicne gacan wax bixisa yeesha degdeg iyo fudaydna ma fiicne deganaan iyo dulqaad yeesha qoladiina aan jaarka nahay waxa tihiin talada la roogin waa lagu rafaada war madaxweyne farmaajo war kama hayside maanta wuxuu ka tagay dalka Eritrea waxaana la yiri
asiyaas afweerkii wala kulmaya war elatariya xuduudii ay Itoobiya la lahayd bay xirataan la yiriye madaxweyne farmaajo maabi Axmed iyo afweerku soo heshiisinaya war iskaashiga saddexdii dawladood madmadow ma soo dhaxgalay aryaadaha gabarta hadda ka hor la kufsaday lana jarjaray ee magaceedu ahay Caasha Ilyas qoyska dhala waxa la yiri beledka gaalkacyood waa ka qaxeen waxayna u qaxeen xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya waxayna ka carareeraan la yiri cabsi soo wajahda iyo cadaalad darro ha arla alwaansa way meelada cadaalad darro ka aragda walka araawe waryaadaheen Somaliland waxay xabsiga ka sii deysay hablo dhaqan xumo markii hore lagu qabtay oo Kanadiyaan ah war waxa la yiri aqoon iyo dadaan awood badan lahayn hadduu kala ambado aboorka cunee inaad urursanaan isku aaminto hadba midu ehela arrinka u dirto adinkiya afkaba isu geysataad ku adkaan kartaa Soomaali war may ambaagane langi dhimid inoo aboor aamaw war hay'adda nabadgelyada waxay tiri ninka tirsan amniyaadka shabaab baan Muqdisho ku qabanay amiir hore gada iska dhiibayna xamar baa loo soo gudbiyay villadooda sidii reed lamadiyo war baarlamaanka sidii ardayda dugsi quraanka loo wixi jiray maanta waqti badan ay qaadatay si kooran ku buuxsameynayso xaadiraan 6 saacan la furay kulanka waxaana la yiri gudiga xuduudaha ay warbixin ka dhigaysanayaan war hiiraan oo shalay salaadii roob doonta laga dukanayay maanta roobabkii guga ka curtay war unub reejo rabba toognay hatiirka dhon hamidowya ilaahay roobni heshaan war ilaaha baxsha roobke aan ka barino war Premier League war kama haysaane kaalinta afraad ba horyaalkii noqoto kooxda dhamaw tartamayaan war waxa looga sheekeynaysaa waa maxay wariya waa ciyaariha adduunka war yahaan haado dadka dhaajran Premier League way noo galeen wariya roob Allah keene amiin